kulankan oo ahaa mid looga arrinsanayay dhismaha golaha deegaanka degmada Jowhar oo ah caasimadda Hirshabelle ayaa waxaa soo qaban qaabiyey wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee dowlad goboleedka Hirshabelle waxaana ka qayb galay ururada bulshada rayidka qaarkood wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Hirshabelle wasiirka caafimaadka maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe iyo kan degmada Jowhar waxaa looga hadlayay kulanka in magaalada Jowhar ay yeelato golo deegaan si ay mas'uuliyiinta degmada ee bulshada ugu dhex imaan lahaayeen dadka kulanka ka qayb galay ayaana soo dhaweeyay dhismaha golaha deegaanka waxaa ugu horreyn goobta ka hadlay gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka Shabeellaha Dhexe Fartuun Aadan Xeefow iyo gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Shabeellaha Dhexe Madiina Cadow Culuw waxayna sheegeen inay aad ugu faraxsan yihiin dib u yegleelidda dhismaha golaha deegaanka degmada Jowhar golaha deegaanka dib loo soo cusboonaysiino wax aad u fiican waxay muhiim u tahay bulshada degmada Jowhar waxaan ognahay golaha deegaanka in faa'iidooyin badan ay leeyihiin wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasiirka wuxuu waqti badan geliyay in dowladda Hirshabelle ay hesho guud ahaan degmooyinkooda golaha deegaanka bacdi salaam waa wax farxad leh in loo sameeyo maxaan ku raahdaa golaha deegaanka soo cusboonaynta amba muxuu ahayd taabagelinta golaha deegaanka ee Hirshabelle gaar ahaan degmada Jowhar juhdi badan la geliyay intii soo shaqayso intaas u soo tacaburtay oo wax ka qabatana abaanteeray leedahay dhinaca kale waxa ayagana goobta ka hadlay duqa magaalada Jowhar Saalax Muudi Cali iyo kusimaha gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe Maxamed Cabdi Sheekh Xandow waa arin aad in loogu farxo ah sababtoo ah golaha deegaanku wax badan ayuu noo tari doonaa insha Allah waxaan rajaynaynaa in aniga aan ka muudno rabaa insha Allah waxaan aad u soo dhaweynaynaa maanta in dib loo yigleelo sidii loo horumarin lahaa amba hore loogu sii wadi lahaa maamul samaynta ama daadejinta dowladaha hoose xaqiiqdii wasiirka wuxuu qabtay howlo adag inta ay jirtay waa la socotaan inta badan hadda isma warqaanaysa kulliina waa soo naqaanaa odayaashii dhaqanka iyo dhalinyaradii haweenka hadda kaliya maaha markay kulmaan oo ay u kulmaan arrintan muddo sanooyin ayay soo socotay ugu dambeyn waxaa kulanka soo xiray wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee dowlad goboleedka Hirshabelle Maxamed Cali Caadle haddii ay noqon lahayd sharaxaada loo sharaxayo maaragtay golaha deegaanka iyo waxay leeyahay faa'iidadooda iyo waxa ku jira processki la mari lahaay waxaan rabnaa hay'aduhu laga bilaabo birito haddii Ilaahay yiraahdo hawshaas in ay bilaabaan oo shaqada ayagu ay leeyihiin ay ka gutaan markii la gaaro in wax la qaybiyana hawshu waxay ku wareegi doontaa haddii Ilaahay yiraahdo odayaasha dhaqanka saasaan rajeynaa haddii Ilaahay ka raali noqdo Ibrahim Cali Nuur TV Universal Jowhar